Maalin wanaagsan asxaabta. Halkan waxaan ku haynaa Raspberry Pi haddaan xoogaa yar idin sheego. Waa computer yar, computerkaas yarka ah oo aad ka controli kartid waxyaabaha electronicska. Waxay leedahay processor 1.2 gigahertz, speedkiisu yahay 1 GB RAM ayay leedahay. Video audio output jack ayay leedahay. Waxay leedahay HDMI kaasoo TV-ga aad kula xiran kartid oo aad kusoo bandhigi kartid sida waxyaabaha sawirada iyo videoyaasha kugu jira. Iyo inta waxay leedahay LCD port, waxaa gelinaysaa fiilada ama plugga LCD-gaada sida LCD touch screen LCD oo kaleeto waa ku isticmaali kartaa, kaasoo intaa gelinaysid. Inta waxay ku leedahay port kaleeto oo ayadana kamarada loogu talagalay, Raspberry Pi camera. Inta waxay leedahay 4 USB 1 2 3 4 oo aad u isticmaali kartid waxyaabaha kala duwan sida flashada yararka ah ee lagu qaato daatada, faylasha iyo waxyaabahaas. USB-ga, mouse-ka iyo keyboard-ka, Ethernet cable inta waa gelin kartaa, waa lagu isticmaalaa. Bluetooth iyo wirelessna way leedahay. Inta waa 40 pin oo isugu jira 5 volts, 3 volts iyo 0 ama ground, iyo input output pins. Input output macnaha waxaa ka wadaa inay waxyaabaha ku akhriyaan qaarkoodna ay leerarka ku shidaan sida LED-gaas oo kaleeto, ama waxyaabo kaleeto sida controlling-ka oo kaleeto sida relay-ga adoo isticmaalaysid inaad gurigaada ka shidid ka damisid. Ayada mouse iyo keyboard waa ku xiran kartaa oo waa ka isticmaali kartaa. Mouse-kaada iyo keyboard-kaada waa ku controli kartaa inta shaashadaada ama TV-gaada ku xiratid. Si kale oo u controli kartid waxay tahay waxaad isticmaali kartaa tabkaada ama mobilkaada. Hadda waan ku dhex jiraa, hadda program yar ayaan ka isticmaalaya. LED-gan ayaa igu xiran Raspberry Pi-ga. Waxaan isticmaalaya Python language, luqadda Python-ka. Waxaan diyaariyey Python blink.py, waa script yar aan qoray waaye. Waxaan ku qornay scriptigaas sida ujeedinba. Markuu leerku shidan yahay inuu leerkan yarka ah uu shido, markuu shidan yahayna uu dhaho light is on, markuu damo haddana light is off. Lights on, lights off aniga ayaa ku qoray. Leerka wuu shidan yahay, leerka wuu dansan yahay waa ku soo qori karay oo Soomaali ahaan. Carabi ahaan waa ku qori kartaa, luqadda Arabta waa ku qori kartaa. Marka ma aha in English ahaan lagu qoro oo keliya, qasab ma aha. Qoraalkan waa qoraal kuu sheegaya inuu leerka shidan yahay ama uu dansan yahay. Hadda waxaan rabaa inaan shido leerkan ama aan damiyo. Waxaan samayn doonaa, waxaan joogaa directory-ga pi/daacad. My Python ayaan ku dhex jiraa. Python blink.py. Blink.py waa scriptiga. Python-na waa scriptigaas meesha wuxuu isticmaali lahaa inuu ku shaqeeyo waa Python-ka. Haddii aan hit enter dhaho waxaa arki doontaa leerkan oo shidmaya. Hoosna waxaa kusoo qormi doonta qoraal uu shidan yahay, uu dansan yahay. Hadda ayaan sameynayaa enter ayaan leeyahay. Leerka waa shidmay, wuu damay, waa shidmay,
wuu dame. Sama jeedid. Lights on, lights off, light is on, lights off. Marka sidaas ayaad u isticmaali kartaa. Hadda intaan aniga ayaa ku programiyay, laakiin fudayd ahaan ayaan usoo qaatay iyo si sahlan. Laakiin waxyaabo kala duwan ayaad ku samayn kartaa. By voice ayaad ku controli kartaa. Waxaad leedahay turn on the light, markaas kadibna Google API ama Google Speech ama text to speech ama speech to text applicationo badan ayaa jiro oo loo isticmaalo. Applicationaas ayaad u isticmaalaysaa. Microphone ayaa u baahan tahay, USB microphone. USB microphone-kaas ayaad gelinaysaa, kadibna waxaa leedahay lightka jikada shid ama turn on the kitchen light, turn off the room, play music, do something, set YouTube, waxaa rabtid ayaa dhihi kartaa. Waxaa rabtid ayuu ku raadinaya. So marka intaas ayaan hadda soo gelinayaa YouTube-ka, ama rabaa inaan idinla wadaago. Motivation ahaan ayay iga tahay. Ardayda xiisaysa computing-ka iyo computerada yararka ah iyo programming-ka, kuwa electronics-ka xiiseeya, waxyaabahaas oo dhan ayay isku qaban kartaa Raspberry Pi-gan. Waxaad ka access garan kartaa ama aad soo geli kartaa internetka gurigaada adigoo isticmaalaya, kaasoo xoogaa safe ah, iyo adigoo banaanka kasoo isticmaalaya, kaasoo isagana xoogaa risky ah. Sababtuna ay tahay in internetkaada la jabsan karo si sahal ah. Datadaada iyo informationkaada iyo sawiradaada, kaararkaada, bangiyadaada in la isticmaali karo haddii aadan qof expert aadan ahayn. Sidaas darteed waxaan hadda isticmaalay internetka gurigeyga, kaasoo labadooda ka dhexeeya. Connection-keygana ma ahan connection ka baxsan internetka gurigeyga. Sidaas darteed aniga isma dhici karo. Haddaan isdhacana aniga isma dhaafsana, marka qof kale ima soo geli karo. Boortiyadii banaanka waan xirxiray. Marka intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkan. Sidaa ujeediinba waa $35. eBay-ga ayay ka joogtaa, Amazon ayay ka joogtaa. $35 computer ah. Raspberry Pi, Python, C++, JavaScript, luqadda rabtid ayaad u isticmaali kartaa inaad ku programmisid. Dadka game-ka xiiseeya, game yaryar ayaad samayn kartiin, waad ku shubi kartiin, kadibna waad ku dhedheeli kartiin. Computer ahaan waxaa ugu isticmaali kartaa luqado kala duwan ama software kala duwan sida Raspbian oo ah kan hadda aniga igu jira, oo Linux ku base garaysan. Waxaa jiro Windows IoT mid la dhaho version, Windows 10 IoT. Windows-kaas waa Windows yararka hadda taabka taleefanada ah badanaa lagu soo shubo. Windows-kaas kale waa ku isticmaali kartaa. Waxaad ka isticmaali kartaa Office 10, Microsoft Word, kuwaasoo xoogaa ayagana kuwa light-ka ah. Calculator ayaa ku jiro, Notepad ayaa ku jiro. waxyaabo badan oo kusoo degsan kartaa, sida ani hadda waxaan kusoo degsaday oo igu dhex jira Arduino IDE, kaasoo aan ku programmiyo microcontrollerada yararka ee Arduino-ka, sida kan oo kaleeto. USB-gan ayaan gelinayaa,
madaxiisa kale ayaa waxaan gelinayaa USB portiga, kaasoo kan madaxiisa kale waa kana, kan afkiisa hore waa kas, afkiisa dambena waa kana. Inta ayaan gelinayaa. raali ahaada, hal gacan ayaan isticmaalayaa. gacanta kale kaamirada telefonka wax ku duubaya iga dhigantahay. soo jeedin baleerka u imaaday. haddaan u baahdo Arduino IDE-ga, waxaan imaanayaa telefonkeyga, taabkeyga, waxaan xirayaa kan Python-kan sheygan waa kan applicationkiisa. laakiin hadda Arduino ayaan soconay. Arduino intaan tagay electronics, Arduino IDE, waxaan ujeedin taabka idinkaga muuqda. taabkii gudihiisa ma aha, waa Raspberry Pi-gan gudihiisa ayaan waxaan dhex marsiinay wirelesska internet ahaan. wirelesskii ayay noo soo mareen, hawada ayay noo soo martay. informationka iyo videoga muuqaalkii ku dhex jiray Raspberry Pi-gan ayaan gudihiisa iyo waxaan ka daawanaynaa telefonkeyga oo ah taabka. sida ujeedin waa kana projectyaalka haddaan rabo inaan aado, inta ayaan ku dhufanayaa examples. waxaan leeyahay blink without delay, markaas aan ortiin. sida ujeedin hadda xoogaa layerkaas wuxuu shidmayaa every second kasta mar. blink without delay gaan isaga muxuu qabtaa fiirinaba. tools aan board Arduino Uno waa noo dooran tahay boorka. markaas Arduino Uno kasoo tag serial portigana USB port 0, kadibna upload ayaan leenahay. upload markaan dhahno inta waxaan ka arki doonaa compiling ayuu ku hayaa weli uu compile garanayaa. compiling uu dhameeyay. inta xoogaa hadda programka uu qaatay done. laakiin wax isbedela ma lahan. waxaan maleynayaa delayga softwarekan ayaa programkiisa wuxuu ahaa every second. soo ma jeedid intervalkiisa waa 1000, kaas oo ah every second. haddii aan ka dhigno every 10th of second, hal eber ayaan ka tirayaa 100 millisecond aan ka dhigay. kadibna waxaan leeyahay upload. haddana markuu upload gareynayo waxaad aragteen layerkan flash gareynayo kuwan. sida ujeedin soo ma jeedin layerka uu ka dhaqsi badnaaday. marka Raspberry yarka waa computer oo haddana microcontroller ah oo waxaad ka control kartid, oo haddana kuu programming kara microcontrollerada kaleeto. kan aan hadda gacanta ku hayo buluuga ah isaga waa programming kartaa, laakiin isaga wax kama programming kartid. waxaa u baahan tahay markasta computer isaga ku programmist. kan laakiin waa computerkii wax programming lahaa iyo kii la programming lahaa iyo kii microcontrollerada kale ku programming lahaa. marka kan waa computer iyo microcontroller isku jira. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkeygan. daawasho wacan.